بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أخيرا شرفت له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكني تصالح نورشة كلا سعني سومالي كيبل ما أنت وحان كجاه لينا ضدك همة السرله inay markasta dad yar yihiin oo aysan gargaar badan si dhib yar ku helaynin bilowga hore gaar ahaan waxa way waa mushkilo adduunka oo dhan ka jirta ambiyada ilaahay bay ku dhacday mufakiriinta caalamka oo dhan ayay ku dhacday saadaradeed himasara hadaad leedahood hawlo culus aadid ma helaysid duul hagar baxo hadafka ku toosin markaad fiiriso mar alla markii aad dadku dariiqa ee hayaan oo qaloocan marar badan aad istiraahdo adigu toosi ay kugu soo dhacdo dadku ilaahay u soo dira hawshaas oo goosa dariiqaas qaloocan inay toosiyaan si dadku meel sax ay u maraan bidix iyo midig waa lagaga imaan dariiqa in laga leexiyo iyo in la istaajiyo intaba waa la isku dayaa marka waxaa la rabaa dadka himada sare leh yaraanta dadka garab taagan inaysan mushkilo ku noqonin baa la rabaa طبعا tajaaribta la soo maray run ahaan way iska badan tahay ruux walba noloshiisa inuu meel sare gaaro uu ku fikiri jiray intuu nool yahana uu ku fikirayaa marka dadka tajaaribta soo martay way badan tahay markaad goosato go'aan adiga kula quman oo himo sare leh aniga taban waxay soo maray mararka qaarkood aniga oo arday ah oo raba inaan banaanka jaamacad u doonto oo dhibaato weyn iga hor timid oo inaan goosto marka dariiqa aan dadka la tashado markaas waxaan la tashan jiray dad fara badan waxaan rabaa aniga inaan dhoofo inaan maaragtay meel fog aado waxaan rabaa inaan waxaa sameeyo taban wiil yaroo kurayaho himo sare laho inuu wax bartaa muhiim aniga ee ayaani waxaa muhiimaya marka inaan wax barto qadiyo muhiima ii tahay barnaamijka isaga ah dadkii aan u bandhigayay haddii laga reebo ruux iyo laba waxaan ka hadlayaa tobanaan ruux waan ka hadlayaa oo ama qaraabo ah ama saaxiibo ah ama aan isu galaas ahayn wax igu garab istaaga ma helin ruux waliba wuxuu dhahayay khatar baad galaysaa ma dhoofi kartid iska joog waxaana badan kolkaad hawl culus aad adigu dadka usoo markaa taban hawshan aniga markaa ka hadlayo waa hawl shaksi ah taban markaad aado hawl ummadda u dhaxaysa way kasii culus tahay laakiin aniga waxaan ka hadlayaa arday raba inuu jaamacad aado oo la tashanaya dadka ugu dhawaa oo dhammaantood ay isku raaceen maya iska dhaaf iska joog dadkaagaad la mid tahay dadka kama duunid arday naajixaad tahay shaqo waad heli macallin baad iska noqon ama baac mushtari waa iska geli waa iska guursan maxaad ku ordi dadku waxay rabaan inay sida ay yihiin aad ahaato ayay iska rabaan daa'iman waxaana hubaa dhallinyarada maanta nool iyo kuwii annaga nala jooga iyo kuwii dhexda ku jira intuba ruux kastoo ku soo dhacday himo sare yani nooc kasta ahaato inuu dhib kala kulmay waa hubaa ruuxa marka himada sare leh ee raba inuu wax bedelo ama noloshiisu bedelayaa markaasuu inta kale raba inuu bedelo waxaa la rabaa inuusan eegin dadka garab taagan badnidooda iyo yaridooda inuusan marna eegin baa la rabaa haddaan anigu aan samayn lahaa marna maana jaamacad galeenba aslan haddaan aniga dadka garab taagan kolkii aqlabiya saaxiiq ay dhaheen iska joog oo la celiyey haddaan haa dhihi lahaa taban jaamacad maba aanan galeenba automatically dad badan markay tijaaro abuurayaan tijaarada waxba iska daa baa la dhahayaa dadba markay siyaasad galayaan siyaasad iska daa baa lagu dhihi adiga waxaa lagaa rabaa inaad tashatid sax ilaahina tala saaratid sax laakiin marar badan dadka majority-giisa adiga ama say u badan yihiin adiga waxaan kaa celinaya
inay waxaas si saxa uga fikireen ma aha ee waxay rabaan sida ay yihiin adigu inaad ahaato yay iska rabaan sidoodaba inay ku necbiin shardi ma aha ee waxay rabaan dadka la noolow maxaad ku orday adiga dadka maxaad kaga duwan tahay maxaa kaa galay hawshan caamka ah hawshaasaa maanta oo dhan aa lagu wadayaa markaasaad waxaad dareemaysaa marka inaad keligaa tahay marka hawl weyn markay timaado waxaa yaraanaya dadka ku kaalmeynaya yaraanaya hawl ummadeed markaad gashana way ka sii fog tahay saa daraaddeed kolkuu saydina cumar maqlay nin ku ducaysanaya ilaahayow waxaad iga dhigtaa dadka yar iga dhig buu dhahay allahuma ijcalnii min alaqaliin markaasuu saydina cumar yaabay wuhi maxaad ka wadaa dadka yar ilaahu iga dhig markaasuu yaa amiira min somaadan ma qalbun wamaa macahu ilaa qaliil somaadan wa qaliilu min cibaadiya shakuur dadba yarba ilaah ku shukrinaya iyo aayaad buu sheegay markaas intuu yaabay buu ihi ruux waliba cumar wuu ka faqiihsan yahay buu dhahay radia allaahu canhu tawaaduciisa iyo dadnimadiisa cabiraysaa inuu geesinimo geliy ninkaas ayuu rabaa sufyaan ibn cuyayna wuxuu yidhi dariiqa xaqa aqaada buu yidhi laakiin yarida dadka ku garab taagan yaysan ku cabsiinin buu dhahay waa tajaarib aan xusuusanahay adna aada xusuusan tahay waaye marar badan caalimkii weynaana wuxuu yidhi fudayl miciyaad adiga dariiqa toosan kaa un ilaali buu yidhi dadka haya dariiqaa toosan haba yaraadeen dariiqa xunna iska ilaali dadka socdaana haba bateen mantiqaasaa keeni yani dariiqan ma fiican yahay mise mixun yahay adiga waa inaad saa u doorato wax ma tari mise ma taraayo waa inaad adu meesha dagaalka ka gasho laakiin dadka hayaa ma badan yahay mise ma badna laakiin sida loo badan yahay dadweynaha la raacaa mawjadaas ayaa la iska raacaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka sheekaynayay hogaanku siduu u yaryahay dadka himada sare leh ee hogaanka ah ee wax bedela siduu u yahay markuu ka sheekaynayay inama annaasu kalibili lmia buuhi 100 geel ah ama geel 100 ah labadaba macnaheedu wuu yahay ruux haysta laa takaadu tajidu fiiha raaxila oon helaynin neef uu rarto marka faa'iido wuu leeyahay laakiin haddana geel 100 ahoo neef rarta laga leeyahay waa mushkilo aada u weyn waaye abu bakr sidiiq radi allahu canhu markuu ka waramayay qacqaac ibn camr khaalid waliid buu ciidan ii soo dir qacqaac buu u diray nin saxaabiyu ahaa markaasaa nin uu leeyahay halqa markaasaa wuxuu yihi sawdkiisa keliya ayaa kun nin ka wanaagsan buu ihi laanna nin aan cabsanaynin ayuu ahaayo dagaalka aan ka cabsanin buu ahaayo ilaahay geesinimo iyo haybaba uu geliyey waxaan ka hadlaynaa marka dadkii markii aad saa u fiiriso waxaa yar hogaanka طبعا waxaan ku soo khatimaynaa meesha sayyidina Umar markuu saxaabadii uu fariisiyay si aad u ogaato aadan adiga u cabsanin markii aad aragto dadka oo ka horjeeda ama waxaad adiga kula quman aan la qumanin marka aragto tamanno buu dhahay ilaahay wax warsada oo waxaad jeceshihiin ilaahay u sheegta nin waliba طبعا wuxuu yiri anu gurigan oo dahaba buur fidaa oo sadaqaysto ayaan jeclaan lahaa oo fi sabiilillaahi aanu sadaqaysto nin waliba wuxuu jeclaa buu sheegay sayyidina Umar markaasuu ku celceliyay markaasay dhaheen anagu intaas naga dhantay adigu bal waxay dhaheen wax noo sheeg markaasaa uu gurigan oo buuxa ayaan jeclaan lahaa buu yiri oo abi ubaydah ibn al-jarrah oo kala ah yani Umar radiyallahu anhu wuxuu dareemay markaas in ay dadka ku yar yihiin buu dareemayay haddii ba asxaabu rasuulillaah sayyidina Umar oo nool oo khaliifadii labaaduun ahaa hadduu dareemayo inay hogaani yar yahay marka haddaad maanta marka aad damacdo inaad hogaamiso ogow adigana hogaanku waa kugu yar yahay laakiin sayyidina Umar yani waxaan ku kala duwanahay sayyidina Umar hogaanku raadinayay waa ninkaas oo kale amiin hadi umma asxaabu rasuulillaah oo mubashiriin bil janna oo wax walba oo khayra oo ilaahay uu siiyay abi ubayda iyo in lamida ayuu sheegay laakiin marka aad u raadinaysid dad beenta kugu taageera ama rishada kugu taageera ama risho ku siiya ama masab
una usoo tartib xaq u lahayn aad rabto inaad geyso marka isku dariiq lama hayo marka saasaa hoggaanku marka casri walba u yaryahay waxaa marka la rabaa inaad ku dadaasho adiga markii aad maaragtay aad dooranayso ruux aad shaqo u dooranayso inaad og tahay sidiisuuba hoggaan u yaryahay ugu yaraan shuruudda ugu yar uun inaad raadiso oo aad tidhaahdi war yaa ugu kafaa'a badan oo yaa ugu ammaano badan oo yaa ugu wanaagsan ugu yaraan inaad raadisa way yar yihiinba oo lama hube laakiin inaad saa u raadiso ayaa la rabaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh